Bismillah. Welcome back to Somali Arsenal Fans TV. Markanna waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa Arsenal. Arsenal ayaa weli ka xiisa dhigeen Argentinianka Ajax difaaca u diila Lisandro Martinez, kaasoo weliba wararka ay sheegayaan inuu aad ugu xanaaqsan yahay Ajax uuna doonayo sida ugu dhaqsiyaha badan inay u iibiyaan, asagoo welibana aad uga xumaaday inuu kalaabkiisa Ajax ay celiyeen lacagtii ay soo bandhigtay Manchester United wiigan dhexdiisa. Dhanka kale, Arsenal ayaa weli la tartamaysa Manchester United si ay u saxiixdo Lisandro Martinez, hase ahaatee ma jirto ilaa hadda wax lacag ah oo ay u bandhigeen Ajax. Inkasta oo ciyaaryahanka uu raba inuu haleelo koojkiisa Erik, haddana macalinka u ah kooxda Premier League ka dhisan ee Manchester United, xiisana uu u qabo inuu ka ciyaaro Premier League. Hase ahaatee, waxaa lagama maarmaan u ah go'aanka ay qaadanaysa Ajax. Ajax ayaa waxay raadinayaan lacag gaarayso 50 milyan, ayagoo aanan fiirinaynin Manchester United ama Arsenal. Inkasta oo Martinez uu ku dambeyn doono Arsenal ama United midkood, haddana wuxuu noqon doonaa saxiixidiisa mid aad u dahday, maadaama Ajax ay doonayaan inay ku helaan lacag 50 milyan ah. Sidoo kale, William Saliba ayaa ugu dambeyntii la arkay asagoo xiran funaanada Arsenal, taasoo u cadcad inuu season-kan joogi doono, wuxuuna ka mid yahay ciyaaryahanadii ku maqnaa qarankooda inay matalaan, maantana kusoo noqday North London. Sidoo kale, Bukayo Saka, Granit Xhaka, Martin Odegaard, Nuno Tavares, Lucas Torreira, Ramsdale, Tomiyasu iyo Partey ayaa waxay ka mid ahaayeen ciyaaryahanada soo noqday si ay isugu diyaariyaan ciyaaraha la ciyaari doono inta uusan Premier League bilaabanin. Inkasta oo Thomas Partey aana la arkin asagoo ciyaaryahanada la tababaranayo, hase ahaatee waxaa la arkay video tusaya inuu London Colony soo gaaray. Nala soco dhegeyste si aad u hesho Somali Arsenal Fans News, fikradaadana nagula wadaag qaybta commentiga.